بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأحمد محمد آذن نحر إذن الله وقت وناكسن waxaan doonayaa inaan idinla wadaago akhyaaray 31 eray oo dhiirigelin ah oo abis la yiraahdo qoraahiyo aan ku sameeyay ee Play Store-ka laga helayo in aan akhriyo inaan mariyo 5 kamid ah. Nambarka ugu horeeya ama tan ugu horeysana ay tahay buuninimadu waa barasho cilmi baaxad leh balse halkay ku kala xambaarsan waa garaad badni. buuniga waxa la yiraahdaa qofka caalimka ah. qofka caalimka macnaheedu waa maxay? qofka mutaqalka waxa la oran karaa goortu cilmi badan daraaseeyo, wax badan akhriyo, wax badan hayo. haddaba dadkaas sidaa ah oo caalimka ah oo buuniga ah waxay ku kala haraanin garaad badnida. cilmi aan garaad badan ku larayn macna weyn ma leh. lambarkiisa labaad liibaanta labada daar waa xiriirka eebe oo aad adkaysa. haddii aad doonayso in aad liibaanto adduun iyo aakhiro waa in aad adkaysaa xiriirka aad la leedahay Allah subxaanahu wa ta'aala cibaadooyinkiisa iyo wixii lagu abuuray in aad ka soo baxdo waajibaadka samaawiga. lambarka saddexaad wajiga muusada badani waa qorax labaad sida diintuna farayso rasuul sallallahu alayhi wasallam sunniyi bashashatul wajhi sadaqa. inaad tahay qof waji furfuran, qof ka soo baxa muslimka iyo qof ka soo baxa salaanta islaamka. waji furnaan waxay la mid tahay la dhigtahay qorax labaad oo ku dhalatay saaka ku soo baxday saaka. qodobka saddexaad afraad aqoon aan ku larnayn dhowrnaan iyo asluub waxay u dhigantaa ku harakaysan. aqoon kastoo aad leedahay haddaysan ku larayn aqoontaadu dhowrnaan inaad cafiifa tahay, asluub inaad dabeecad wanaagsan, habdhaqan wanaagsan, si wanaagsan u dhaqmaya, erayo wanaagsan ku hadlaya, inta haddaadan ahayn macnaheedu waxa weeye ku harakaysan. dhar wasakhaysan oo kale, dhar wasakhaysan ninkii ilaa ku xaragoonaya macnaheedu muxuu noqonayaa? qodobkeeda shanaad inaad ahaato ruux dulqaad iyo adkaysi leh waxay ku mootisaa duruufaha nololeed. inaad ahaato ruux dulqaad sabir, adkaysi, inaad leedahay bersad, inaad wax badan u dulqaadan karto, u adkaysan karto duruufaha jira, caqabadaha soo food saaraya. waxay ku mootinaysaa, ku dhaafinaysaa duruufaha, xaaladaha adag ee noloshu ay leedahay. like subscribe si insha Allah ula socoto barnaamijyada xiga.